degmada Saaxdheer oo ugu horeeyaan labada garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad mukhtaar garaad cali ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo in kasto iyo cid kasto xafladda ka soo qayb gashay xuqaasha iyo culimada iyo waxgaradka kala duwan waxaan ku salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh xaflad khayr baynu iskugu nimid waana waxyaalaha loo kulmo kuwa ugu khayrka badan sida Allah subxaanahu wa ta'ala inoo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna ka yeelo ajar iyo xasanaad kuwa ku hela isku imaatinkan mid barakaysan Allah inoo ka yeelo inta ka bacdi haddaan warbixin kooban aan ka bixiyo macadkan imaamu shaafici ee xafladiisii maanta furitaanka aynu joogno macadka waxaa la bilaabay howlgalkiisa u horeeya bishii koowaad kowdeedii 2021 waxa uu dhismihiisu dhammaaday bishii shanaad labadeedii 2021 muddada macadka dhismihiisu uu socday waxay ahayd 5 bilood ayuu ku dhammaaday macadku waxa uu ku dhismay oo la oran karaa ama wax ku bixiyay jihooyin kala duwan oo aan hal jiha ahayn waxa uu ku dhismay isku tashi bulshaduna way ka wada qayb qaadatay min garaad laga bilaabo oo runtii bilowgiisa laha khayr Allah siiyo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo guda joog iyo qurba joogba waa laga qayb qaatay wuxuuna markaa uu ku dhammaaday kuna bilowday isku tashi deegaan dad badan oo muxsiniin ah ayaa ka qayb qaatay oo macadka wax ku darsaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu u weydiinaynaa cid kasta oo juhud ku bixisay macadkan haddii ay tahay gudidii gacanta ku haysay ee maamulaysay dhismihiisa iyo haddii ay tahay cid kasta oo talo kaga qayb gashay iyo haddii ay tahay cid kasta oo maal ku bixisay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u dambi dhaafo ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr ha ku abaal mariyo sadaqa jaariya Allah uga dhigo inana ilaahay hayno ka dhigo kuwii aynu ku intifaacno hadafkii aynu u dhisanayna aynu maaragtay ku gaadhno waxa dhulka macadka dhulkiisa bixiyay maxamed saleebaan sanad ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr ha siiyo waana xanuunsanayaa si gaara aynu ugu ducayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadaqada ula baxay ee jaariga Allahu aqbalo macadku waxa uu ka kooban yahay 6 fasal macadku wuxuu ka kooban yahay 6 fasal oo laba ay yihiin hool isku furan 3 suuli iyo xafiis iyo stood iyo barkad iyo daarada aynu fadhino kharashka macadku uu ku kacay guud ahaan haday tahay dhismaha hadii ay tahay qalabayntiisa iyo hadii ay tahay dabgelinta ugu dambaysa ee sister solarka ah $44200 $86.28 ayuu ku kacay Allahu aqbalo cidii hantida la baxday ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadaqa jaariya Allah uga dhigo hadafka macadka loo dhisay waa in uu soo saaro jiil maaragtay taqaana ama garanaysa ama uu noqdo goob lagu barto kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo sunnadiisa iyo dad ducaad ah oo manhajka salafu saalix raaca in ay ka soo baxaan una noqdo goob ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu weyneeyo
oo dad yaqaana ay ka soo baxaan macadkii alxamdulillahi rabbil caalamiin waa inoo dhismay waa inoo qabyo beelay hadafka aynu u dhisanayna waa goob waxbarasho inay jahliga kaga baxno waxaan markaa aan ku dardaarmi lahaa macadku khaasatan deegaankan uu ku yaalo guud ahaan waxbarashadiisu deegaanadoo dhan buu u furan yahay waa goob ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa lagu baranayo khaasatan waxaa xil ka sii saaran yahay deegaankan aynu joogno ee uu ka dhismay ama ka dhisan yahay Saaxdheer in laga faa'iideysto bulshada qaybaheeda kala duwan haday tahay dadka waaweyn dumarka ardayda yaryar qaybaha bulshada dhan buu u furan yahay oo insha Allah taala macallimiintiisina ay diyaar inoo ku tahay taas markaas aynu baahidii aynu u dhisanay aynu markaa kaga baxaynaa dadka muxsiniinta ah ee waqfiga la baxay iyo sadaqadana ajarkii iyo xasanaadkii uu markaa ugu soconaya